ما فعنا إن لصيد بوضع عمل يرادو وإسقى ولا ده ما رأيتي تنتيو حاجة وحي علامة دي وحبوس سمستي وعكو قرح بدنت هاي إن لا جحرم وعكو كلفتين إنه صاف فريستو وهلا ويرادو أنا جو حشقكم من الدين تي الإسلام جواز حتى وأشات كوحة شرب ضيالة أي حوجد وجلنيان واحنا الدين تكبحي ما شيء ده كعبد لا يبقى كم كان قلنا You don't know now. وحن ربع إنان أديو إنان هيقف في إسلامه وإلهي النبي عيسى محمد بجعل اللهم صل وسلم عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي مالك استعدون كجوكتان وكين سيكي وإذا اسكو سو نقد وناكسن oo waliba xiisa leh waxaan idin rajeynayaa meel kasta adduunka ka joogtaan in idinku caafimaad qaba aad soo laabateen waxaan xoogaa hargab yar iska jiro ee dulqaata haddii codkayga macnaha aad fahmaysaan waxaan rajeynayaa in aad fahantaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka qoraalada ii soo qorayay ma caafimaad qabtaa shan cisho ma ku arkoona se wax u jiraan ma caafimaad qabtaa kulligiina hal eraya soo wada qoraysaan ma caafimaad qabtaa shanbari youtube lagama hayo aad iyo aad u mahadsantiin run ahaantii haddiiba sidaas ay ii tabaysaan oo aad caafimaadkayga ii weydiinaysaan waa sababta u dhaho aniga idinka waxaan nahay sida walaalaha oo kale CK family I love you so much guys waayahay maanta muuqaalka aan ku soo laabtay haddii aan nahay CK inta maqanaay dabcan daday daawo u tahay horta iska jecel inaan maqnaado laakiin markii aan soo laabto wajigaan qoslay hadduu xitaa wajigaan jireen waa iska qoslay ilaa amarkiisa naxisiin haddaan soo laabto ha u naxisiin xalafkaaga manbuuba aniga bariis miya xalafka wallahi kawankaas ilka buugaas waayahay kaftanka haddii aan ka soo tagno qamar suugaani ayaa waxaa la leeyahay haddaba u kaadi horta muuqaalkan ciwaankiisa waa soo aragtay xagga sare ku qoran commentiga la soo ordin deganaan kabaha muu faarax iga bixi gadaal u fariiso relax إيوة شكرا هاي kadib muuqaalkan markii aad dhameysatid fikradaada ka dhiibo waxaa baraha bulshada isla dhaxyaacay fanaanka qamar suugaani oo la leeyahay wuxuu ku biiray qolada shayaadiinta caabuda ee magacoodu yahay Illuminati waayahay calaamado gaar ah ayay leeyihiin lagu aqoonsado calaamadaas oo la leeyahay waxaa lagu arkay in jarmo timihiisa ah oo kale uu sameeyay oo kale adiga waxaas la isla dhaxmarayay waxaa kale iyadana jirto la leeyahay waxaa jira heesta oo u qaaday Maryan Axmedey gabadha la yiraahdo in ay ku jirto cod ah qolada shayaadiinta caabuda magacooda muuqaalka inay ka dhaxyareyso taa waxa lagu soo diray Instagram-ka jab yar oo muuqaal TikTok ah yaabkan daawa lagu soo qoray markii aan daawaday aniga ruuxayga yaabay oo mar raba inaan idin ka horgalo waa isla wada dhageysanayna muuqaalkaana raba hadda reaction-keena ka bixiyo balse waxaa jiro cod lagu dhawaaqayo qolada magacooda ee la yiraahdo Illuminati haddaba muuqaalkan bal aan isla yara dhageysano sawirada noocan ayaa daawadayaal baraha bulshada qabsaday saacadii la soo dhaafay gaar ahaan barta Facebook oo ay sheegayaan dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale wariyaasha Soomaaliyeed inuu fanaanku faraha ka baxay isla markaasina uu diinta Islaamka gacalka kula jiro haddaba daawadayaal dadka Soomaaliyeed ayaa si aragtiyo kala duwan uga falceliyay arrinta noocan inkasta badi ahaanba ay ka hadleen dadka caanka fanaankan iyo arrintiisa waxaa saacadii dambeeyay Facebook soo dhigayay wariyaasha uga caansan isla markaasina uga cadcad Soomaalida laga yaqaanay geeyga Soomaalida degto ayaguna qoraal ku soo qorayay isla markaasina ay ka sii daba qaadinayeen dadka Soomaaliyeed aad loogu faafay barta Facebook waana kuwan qoraalada lagu soo qorayay heesta Maryan Axmed ay hoona markaa mar ay soo daqiiqada afaraad ilaa 6 daqiiqo cod ayaa ka hoos baxay sida hadda qofkan wariyaha uu noo sheegay ama muuqaalkiisa aan reaction-ka ka bixinayno heesta markii ay marayso daqiiqada afaraad ilaa daqiiqada 6 markii ay marayso heeska ayaa waxaa ku jira lagu leeyahay Illuminati dhawaqaas aniga ruuxayga waa aan maqlay run ahaantii waaba ku nacayba waa maqlay marba waxaan isri haddana kale inta qof edit gareeyay miyaa la saaray macnaha qof intuu soo edit gareeyay miyaa la saaray oo kale xitaa waa isri yaa idin ka hor dhiganaysay dhageysan la heesta
naftirkeeda ayuu codka ka dhex yeerayaa. haddaba bal aan tagno heesta naftirkeeda kadibna aan eegno haddii uu ka dhex yeerayo waxaan la sheegayo. heesta 4 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo inta ah ayuu ku jiraa ayay leeyihiin. ma maqasheen halkaas waxbaan ka maqla aniga 4 daqiiqo iyo 5 second markay ku sii dhacaysay gadaal u soo celi 4 daqiiqo iyo 1 second 4 daqiiqo iyo 5 second markay ku dhacayso si wanaagsan dhegta u taag 4 daqiiqo iyo 5 second markay ku dhacayso. You don't know now. 4 daqiiqo iyo 5 second markay ku dhacayso codkaas Illuminati-ga u eg waa la maqlayaa bal si fiican marka la u dhageysano 4 daqiiqo iyo 5 second markay ku dhacayso. You don't know now. waa la maqlaa mar kale ku noqdo 4 daqiiqo iyo 5 second si fiican u dhageyso. waa la maqlaa Illuminati waa la maqlaa dadka siday intaa usoo jareen ee TikTok usoo dhigeen. welibana waxaan sameynayaa muuqaalka marka ay dhidgareenayo intaa waa dheereen doonaa codka waa kusii dari doonaa si clear aan ugu kala ogaano waxaan meesha laga dhex maqlayo. haddaba su-aashu waxay tahay codka meesha laga dhex maqlayo lama dhihi karo fanaanka leh Illuminati oo kuma dambaabi karno lama dhihi karo totally. waxaa jiro waxa la yiraahdo hormone heesaha marka la duubayo hormone whatever wixii loo yaqaanaba ama hype waxa la yiraahdo codkaas oo laga saaro xagga dambe heesta. Iwad sheekada haye. heesta marka la qaadayo ayaa waxaa laga saaraa backgroundka dambe ayaa cod ahaan loo saaraa ayadoo si yaroo maaragtay daciif uu iska dhigayo fanaanka ama codkiisa uu bedelayo cod bedelan adiga hype hormone wax saas camal loo yaqaanaa. marka codkan kuwaas uu egyahay codkii rasmiga ahaa ma ahan macnaha codkii rasmiga ah fanaanka ma ahan waa cod hormone ah aan la fahmaynin qofku yahay aan la dhihi karin waa isaga laakiin wuu ka dhex yeerayaa waa run heesta naftirkeeda ayuu ka dhex yeerayaa. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay marka yuu noqon karaa qofkan waxaas heesta ka dhex leh ma waxau noqon karaa qofkii edit gareeyey oo effect ahaan u saaray ayuu noqon karaa ma wuxuu noqon karaa qofka heesta vocal recordingka duubayay ee codka qabanayay ayuu noqon karaa ma sheegi karno marka kuma dambaabi karno wixii waa la maqlaa social media waa la isla dhex marayaa laakiin qof dhihi karta ma jiro isaga ayaa leh. You don't know now. amaba kii codka qabanayay ama kii edit gareynayay qof dhihi karo ilaa iyo hadda male laakiin wixii waa la maqlaa. qofna ma samayn kartid adiga in aa gaalaysid qofna ma ku samayn kartid cadeen cad adoon haysanin in aa gaalaysid ama wax uu ahayn aa ku tilmaamtid waa wax laga xumaado anigaba waan ka xumaa lahaa laakiin mid ayaa jirto isaga ayaaba muuqaal soo duubay isla TikTok-ga muuqaal ah ayaa la ii soo diray isaga oo muuqaal soo duubay oo leh waxaas la dhex maraayo oo la sheegayo anigu shaqo kuma lihi diinteeda islaamkana waa haystaa isaga ayaaba cadeeyay oo ka hadlay. haddaba waxaan maxay yihiin marka Illuminati iyo waxaan la sheegayo iyo shayaadiinta dadka caabudiyay maxay yihiin fanaaniinta hadda maalmahan dambe soo baxay ama ha ahaadaan Mareykan ama ha ahaadaan nooc kale ama heblow ha ahaadaan iyagoo horta targetkoodu wuxuu yahay fanaaniinta fiyuuska badan sameeya caalamka daafaha meeshay doonaan ha ka joogaan ayay waxay ka dhigtaan bartilmaameed macnaha bartilmaameed ayay ka dhigtaan ayaga oo isla markiina heshiisyo la saxiixda kuwaasoo ka dhaadhicinaya haddii ay ku biiraan in fankooda uu samada sii galayo amaba fiyuus waalan ay sameynayaan Illuminati haddii ay saxiix siiyaan oo ay tiimkaas ku biiraan shuruucdooda iyo maaragtay badahooda iyo diimahooda iyo waxaasna ay markaas sameynayaan waxaa ku amran tahay macnaha wax kasta oo iyaga u yaala markaas oo sharci ah in aan ku dhaqaaqno aad iyo aad maaragtay u xun yihiin sharciyadooda haddii lagu sheego waa yaabaysaa. maalinaan barnaamijka soo sameyn doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo maxay yihiin maxay qabtaan markii aad ku biirtid maxaa waajib kugu ah in aad samaysid oo kale. haddaba su-aashu waxay taagan tahay fanaaniin lagu camirinaayana waa arkaya qaarkood hindi ah kuwa youtuber ay ka jafayaan ay leeyihiin sidaan oo kale macnaha saan oo kale ayay waxay ku sameeyeen calaamadihii Illuminati-ga oo kale ayagoo wax kusoo dardarayo oo kale marka ayadoo lagu camirinayo la dhahayo ma waxa aaminteen
in haddii haysiina waxaas kusoo dartaan ee fiyuuska waali uu noqonayo macnaha shaydaana fiyuus dhaqaajida أمانة الله أمانة رسول anadii mashiga youtube-ka ku qora hindida youtube-ka ku qora video caankaasa habeen arkay aan daawanayo oo iga qosliyey macnaha waa lagu dhegnaay waxaa loogu dhegnaa kuwa kaloo youtuberaa ku dhegnaayeen dabcan inay muslim ahaayeen u maleynaa waxay ku dareen calaamadihii illuminatiga ee muuqaalkoodii ay sameynayeen ku dareen ayagoo aaminsan macnaha waxaan shaydaana fiyuus dhaqaajinayo oo tiimkaas wuxuuda haddii video ay dhex gelisid shaydaanka kaa warqabayo oo fiyuuska la ordaya camal أمانة الله أمانة رسول ma joogti le taas ma jirto marka fanaanka isaga wuxuu yidhi anigu waxaan shaqo kuma lihi afkiisu ka hadlay qof afkiisa ka hadlay oo isagaiyo nool soo istaagay oo hadlayna ma fiicno in lasii dabawado ama la yidhaahdo waa isaga oo la dhaho maaragtay tintiyo xaggan wixii calaamadii iyo waxbuusa samaystay waxay ku qurux badan tahay in laga haro waxaa ku kalifteen inuu soo fariisto uu hadlo uu yidhaahdo anigu waxaa shaqo kuma lihi diinteeda islaamka waa haysta xitaa waa ashaate kooxo sharwadayaal ah ay hawada u gelinayaan oo ah inaan diinta ka baxay ama shaydaanka cabta ilaahay baa ka magan galnay You don't know now. waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan ahay qof islaama oo ilaahay iyo nabigiisa maxamed bajal allahumma salli wa sallim alayhi ashhadu an laa ilaaha illa huwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu marka waxaan baaq u soo jeedinayaa in laga haro ma wanaagsano adigay dembi kugu noqonaybe qofku soo leh aniga waxaan shaqo kuma lihi layga dabawado oo qof islaama ahay diinteedana haysta haddii aad ka dabawadid waxa markaas aad ku sheegaysa asaga adaa ku jiro oo qof ayaad afkaaga ku gaaleynaysaa wax qurux badan maaha anyway waxaan ani soo jeedin lahaa in meeshaas looga haro maadaama isaga afkiisa uu ka leeyahay anigu waxaan shaqo kuma lihi mana qurux badno qofka bini-aadanka wax isagu uu kuu sheegayo ku leeyahay shaqo kuma lihi in adiga afkaaga uga dhigtid anyway waan soo laabtay hadduu ilaahay raali ka noqdana update ayaan ahaan doonaa weliba labada janaal CK Time TV-na indhaha ku hay waxyaabo fara badanaa soo socdo waxaa soo socdo fanaanka ku guulaystay bisha la soo dhaafay waxyaasihii soo baxaan rashinka ka bixinaynay waxaa kaloo soo socda waa kuma stuudiga ku guulaystay ee ugu muuqaalka quruxda badnaa iyadana hadduu ilaahay raali ka noqdo see you Haygo tag tag digi digi le haygo soo sirmi sagu diifle haygo dhixin dhixin nacable